salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka xogaha ciyaaraha caalamka ee janalka bartamaha May. Anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuun. Qodobada xogaha ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah mustaqbalkiisa Barcelona, suurtagalnimada uu Neymar dib ugu soo laaban karo Camp Nou, iyo dhowr arrimood oo kale ayuu ka hadlay Luis Alberto Suarez, agaasimaha ciyaaraha PSG oo ka baxay aamusnaanta si uu kaga hadlo arrinta la xiriirta Neymar iyo Barcelona. Kordhacyada kulamada caawa laga ciyaari doono horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, Juventus iyo Napoli, Barcelona iyo Osasuna, kulamada Premier League, Liverpool iyo Burnley, Manchester City iyo kooxda kubadda cagtaasi Brighton Hove Albion, Chelsea iyo Sheffield United, Southampton iyo Manchester United. Kooxda Roma ayaa ku dhawaaqday inay dhamaystirtay heshiiska Chris Smalling. Qodobada iyo kuwo kale oo aad u xiiso badan ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena xogaha ciyaaraha caalamka ee janalka bartamaha May. Markale isku soo noqod wacan daawada, haddii ay tahay markii kugu horeysay booqashadaada halkan, fadlan subscribe saar, hukumo gambaleelka, la garay fiidiyowga, la wadaaga asxaabtaada, qaybta faallada inoogu reeb wax walba ee fikirkaaga ah. Mahadsanid. Kooxda kubadda cagta AS Roma ayaa ku dhawaaqday inay dhamaystirtay heshiiska daafacii hore ee kooxda Manchester United Chris Smalling. Kooxda reer Talyaaniga AS Roma ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dhamaystireen heshiiska daafaca Manchester United Chris Smalling. Gianluigi ayaa ka saxiixatay Chris Smalling heshiis ama ah hal xilli ciyaareed ah, iyadoo aysan jirin doonin doog si toos ah loogu iibsan karo xilli ciyaareedka dambe. Waxa uuna ku kacaya heshiiska xiddigan lagula wareegi karo 3 milyan oo euro. Daafaca reer England Chris Smalling ayaa maanta u maray kooxda Roma tijaabada caafimaad, waxa uuna kaga gudbay si guul ah ku biiritaanka Chris Smalling. Kooxda reer Talyaaniga AS Roma ayaa sabab u ah kadib imaatinka Harry Maguire ee garoonka Old Trafford, taa oo ka dhigtay in si toos ah uu kaga baxo garoonka iyo weliba tababare Ole Gunnar Solskjaer koos ciyaaristiisa. Dhanka kale, kulamo kala duwan ayaa caawa iyo galabta laga ciyaari doona horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, Premier League, La Liga Spain iyo sidoo kale Serie A dalka Talyaaniga. Kulamada laga ciyaari doono Premier League haddii aynu dulmarno, kooxda Sheffield United ayaa la ciyaari doonta ligeeda Chelsea. Kooxda kubadda cagtaasi Blues ee Chelsea ayaa ciyaari doonta horyaalka Premier League kulan ka tirsan, waxaana ciyaartaasi ay soo gali doontaa 5 galabnimo. Ka kulankaasi uu garsoore ka noqon doono Adwell, garoonka lagu ciyaari doonana waa Stamford Bridge. Kooxda Chelsea ayaa laga yaabaa inay ku soo bilaabaan Kepa Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, Zuma, Emerson, Berkeley, Jorginho, Kovacic, Mo Abraham iyo sidoo kale Pulisic. Sida Sheffield United laga yaabo inay garoonka ku soo galaan Henderson, Basham, Engin Ogwell, Blackwell, Lundstram, Norwood, Freeman, Stevens iyo xiddiga lagu magacaabo Godfrey lagu daray Robertson. Kulamada kale ayana laga ciyaari doono Premier League waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta Southampton. Devils ayaa iyana ciyaari doonta horyaalka Premier League. Ciyaartooda ayaa soo gali doonta 2:30 daqiiqo. Waxaa kulankan dhexdhexaadin doona Mark Day oo wadanka England u dhashay. Garoonka lagu ciyaari doono waa ST Marseille Stadium. Shaxda la filan karo in labada kooxood ay garoonka ku soo galaan. Kooxda Southampton, Gani, Ferdi, Bray, Pestrine, Danzo, Romeo, Jones, Ward, Pearson, Bavard, Adams iyo Ings. Halka United ku soo bilaabo karo gulhaya Digeya, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Pogba, Pereira, Greenwood, Rashford iyo sidoo kale James. Waxa uuna kulankan ka mid yahay kulan ciyaareedka kala duwan ee laga ciyaari doono horyaalka Premier League. Sidoo kale waxaa ciyaari doonta kooxda Manchester City ee uu hogaamiyo macallin Pep Guardiola. Naadiga difaacanaya horyaalka Premier League ee Manchester City ayaa iyana ciyaari doonta. Waxa ay ciyaartooda soo gali doontaa 5 galabnimo. Waxaa dhexdhexaadin doona John Moss. Waxa ay ciyaarta ka dhici doontaa Etihad Stadium. Waxaa la filan karaa kooxda Manchester City inay garoonka ku soo galaan ciyaartooydooda Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Brandon Silva, Aguero iyo Raheem Sterling. Halka kooxda kubadda cagta Brighton la filan karo inay ku soo galaan Gulhaya Ryan, Dove, Greg Bond, Montoya, Stevens, Robert, Mike Maguire, Muri iyo xiddiga lagu magacaabo Torzide. Waxayna ka mid yahay ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee galabta la sugayo in laga
ciyaaro horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Horyaalka Talyaaniga ayaa laga ciyaari doonaa kulamo aad u xiiso badan. Napoli ayaa waxay la dheeli doontaa Juve iyadoo markaas 8 jeer oo xiriir ah ku soo guuleysatay horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ayaa waxa ay garoonkeeda ku martigeli doontaa dhigeeda AS Napoli. waxa uu ka mid yahay kulamada sida weyn isha lagu hayo Inzaghi iyo sidoo kale Cristiano Ronaldo bandhigyada kala duwan ay kulankaasi ka sameeyaan. barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan ama aad ku daawan doontaan. agaasimaha ciyaaraha PSG oo ka baxay aamusnaanta si uu kaga hadlo arrimaha la xiriirinaya Neymar ku biirida kooxda Barcelona. agaasimaha ciyaaraha Paris Saint-Germain Leonardo Araujo ayaana ka baxay aamusnaanta waxa uuna ka hadlay wararka Neymar la xiriirinaya inuu dib ugu laabanayo Barcelona ka hor inta uusan xirmin suuqa xagaaga. Leonardo ayaana kadib guushii ay xalayta kooxda Paris Saint-Germain 2-0 ka gaartay dhigeeda Maes horyaalka France ama liigwanka dalka Faransiiska. waxa uu warbaahinta kala hadlay kiiska la xiriira Neymar. ma jirin wax heshiis ah oo aan la gaarnay kooxda Barcelona ee ku aadan Neymar Jr. go'aankeena xilli kasta waxa uu ahaan doonaa mid cad. way garteen waxaan anagu doonaynay. waxaan gaarnay dalabka koowaad 27 Agoosto 5 maalmood ka hor xiritaanka suuqa kala iibsiga ee xagaaga. waxa uu furmay inaan ka hadalno ciyaartoyda kale oo heshiiska ku jira, haddana waxaa suuqa ka harsan muddo 3 maalmood ayuu yiri. Leonardo hadalkiisa wata ayaa yiri waxaa la tilmaamay in kooxo badan ay xiiseynayeen inay la socdaan Neymar Jr. tan iyo bilowga suuqa kala iibsiga, laakiin Barcelona waa kooxda kaliya ee dalab ka soo gudbisa Neymar Jr. way adag tahay in Dembele loo sheego in uu baxo 27 Agoosto. Neymar Jr. waa ciyaaryahan aanan caadi ahayn, waa shakhs fiican, waxa uu ku noolaa waxyaabo badan xagaagan ciyaartoyda isaga oo kale ah had iyo jeer. waa muhiim, waxa ay noqon doontaa xilli adag. weli waa in aan xalinaa waxyaabo badan. hamigeenu aad ayuu u sareeyaa ayuu hadalkiisa ku soo afmeeray agaasimaha ciyaaraha kooxda PSG ee Leonardo. dhanka kale arrimaha suuqa kala iibsiga oo maalmihii u dambeeyay ah kuwa kacsan, sidoo kale mustaqbalkiisa Barcelona, suurtagalnimada uu Neymar dib ugu soo laaban karo iyo arrimo kale oo aad u badan ayuu ka hadlay Luis Alberto Suarez, waryahanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Uruguay. waryahanka kooxda Blaugrana Luis Alberto Suarez ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa Blaugrana kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu ka dhaqaaqayo garoonka Nou Camp ee gobolka Catalonia. Luis ayaana waraysi u bixiyey Radio Sport 890 ee dalkaasi Uruguay. waxa uu sheegay weligay kuma aan fikirin inaan ka tago Barcelona. waxaan doonayaa in aan caawiyo kooxda, waxaana ku suganahay koox adduunka ugu fiican. Suarez ayaa sidoo kale ka hadlay suurtagalnimada Neymar Jr. dib ugu soo laaban karo garoonka Nou Camp iyo weliba fursadda uu mar kale ugu ciyaari karo kooxda Barcelona. waxa uuna yiri waan ogahay in waqti adag uu ku jiro Neymar, waa in aan ku caawinaa in qoyskiisa uu kala tashado sida ugu fiican. waa isaga qofka keliya ee go'aanka gaari kara. si kastaba ha noqotee Neymar Jr. ayaa waayo qurux badan ku soo qaatay kooxda Barcelona muddadii uu ku sugnaa garoonka Nou Camp kahor inta uusan Paris Saint-Germain ugu dhaqaaqin heshiiska ugu qaalisan ebig taariikhda kubadda cagta ee adduunka ka oo gaaraya 222 milyan euro. waxaana mar kale laga xiriirinayaa inuu dib ugu laabanayo Barca kahor inta uusan xirmin suuqa xagaagan ee 2019. daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan, waxaan intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena xogaha ciyaaraha caalamka aad kala socoteen janaalka bartamaha May. wixii ku soo kordho ciyaaraha kala duwan ee qaaradda Yurub waxaad dib kaga heli doontaan barteena YouTube aynu ku leenahay. fadlan waxaa iga codsi ah in aad sii sheer garaysaan, la wadaag asxaabtaada, janaalka subscribe saar, xukumo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad. wax walba ee fikirkaaga ah inoogu soo qor qaybta hoose ee commentiga. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. mahadsanidtan iyo barnaamijkan kiisa xiga. nabadgelyo.